نديسي قرمان لولاني قرمان لباني قرمان لبناني لبويري نديسي قرمان لولاني قرمان لباني daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono marxaladihii kala duwanaa ee loo soo maray halgankii xorriyad gaarsiinta Soomaaliya. barnaamijkani oo qayb ka ah barnaamijyo aynu ugu talagalnay maalmaha toddobaadka xorriyadda ayaa waxaan barnaamijkan si gaar ah ugu eegi doonaa munaasabadihii waaweynaa ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ahaa midowgii israaca labada gobol ee waqooyi iyo koonfur. waxaana barnaamijkan ila soo jeedin doonta Sacdi Maxamed Xasan. qarniyaal ka hor ayay gumaystayaashu markoodii ugu horeeyay soo hunguriyeeyeen geeyiga Soomaaliya, balse hardan dheer iyo dagaalo wajiyo kala duwan leh kadib ayaa sanadii 1948 qaramada midoobay guddi u soo direen Soomaaliya si ay u soo ogaadaan cidda ay Soomaalidu rabaan. 22 bishii November ee sanadkii 1949 ayaa qaramada midoobay xukuntay xornimo gaarsiinta Soomaaliya iyo in 10 sano Talyaanigu ka ahaado wakiil. bishii Abriil 1950 ayaa Talyaanigu lagu wareejiyay koonfurta Soomaaliya si uu xorriyad u gaarsiiyo. halgamaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ka mid ahaa halgamayaashii xisbiga SYL ayaa noqday wasiirkii koowaad ee gobolada koonfureed ka hor intaan xornimo la qaadan. mid ka mid ah odayaashii u soo joogay dhaqdhaqaaqii xisbiga leegada ha inooga sheekeeyo doorkii halgamaa Cabdullaahi Ciise iyo xisbiga SYL oo markii hore magaciisu ahaa SYC. shirkii laga qabtay kongareeskii laga qabtay ugu horreeyay kongarees laga qabtay oo lagu tashaday ama lagu tashanayay in la bedelo magaca oo laga baxo kalaadkii iyo SYC ee loo bedelmo SYL iyo siyaasad. waqtigaas 47 ah oo loo doortay Yaasiin inuu ka noqdo xoghaye guud marka ay Cabdullaahi laga dhigay kaaliyaha. isku waqtigii ama ilaahay dilka bacdi marka bacdi waa Yaasiin isku waqtigii haddana waxa loo doortay oo guddigu u doortay ama kongareeskii u doortay ilaa kongareeskii ku dhageyna tegay
إنه عبد الله وغيره. dhalinyaradii u istaagay halgankii xornimo gaarsiinta dalka ayaa geesiyaashii horboodayay waxa ay ahaayeen kuwo ku sifoobay daacadnimo iyo wadaninimo dadkuna ay u riyaaqeen oo si weyn loo wada taageeray. SYL waxay ahayd kacdoon bulsho oo rag iyo dumar u wada guntadeen xilligaasi. intii gobnimadoonka lagu jiray waxaa dhaqankii ummadda ka tirtirmay habdhaqankii foosha xumaa sida abtirsiimo kufaanka gobolaysiga naasnuujinta laaluushka eexda iyo wixii la mid ah. waxaa kuwaas beddelkoodii galay soomaalinimo midnimo bulsho istakoorid la-aan sinaan cadaalad iyo isku tiirsanaan. halhayska shacabkuna wuxuu ahaa axyaa wadani. bishii Julaay 1960 ayay ahayd xilligii ay koonfurta Soomaaliya xorowday isla markaana ay la midowday walaalahooda waqooyi oo iyaguna 5 cisho ka hor u dabaaldegay xilligaasi. dadkii oo farxad hareysay da' kastana isugu jira ayaa isugu soo baxay waxayna lulayeen caleemo qoyan. haddaba maalintan laga joogo 54 sano tan iyo 1960kii intaan dib u eegin marxaladihii ka dambeeyay ee uu dalku galay aan marka hore bal si taxadar loo dhuuxno hadalka Maxamed Ibraahim Cigaal uu ku cabirayo maalmihii xorriyadda inay ahayd duufaan kacday. cigaal wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii hogaaminaysay reer waqooyiga isagoo ka hadlaya marxaladii midowga labada gobolna wuxuu yiri waxay dhacay 60kii
laba kelmadooda qura laguma soo koobi karo waxay u sababaha in ingiriis oo maxay ahayd brigadier minister ayaa wuxuu yidhi dabayl ayaa caalamka maraysa wixii wal ee hore u jiri jiray bedelaysa wind of change ayaa dhacaysa marka lixdankii waxaa joogay dabayshaas ayaa wax waday ra'yi baa laga hore u soo dhisnaan jiray walwaljeesha Soomaaliyeed hal isu geeyay oo ay ka timid shantaas Soomaaliyeed waqti ingiriis uu haystay afar dal oo Soomaaliya Jabuuti ma ka maqnay inta kale u hayay markaas afartii dal dawlad qura cimilad iyo lacag qura iyo administration qura u yeeshay Somaliland iyada inta waxaysataa barigaasay wax qabsatay ay gacan qabsatay waxa ay leedahay barako leedahay iyo waxa ay leedahay barwaaqo leedahay wada jirku ayaa bariga la arkay fikradda la yiraahdo greater Somalia bariga dagaalkii soconayay ayay dhalatay lixdankii haddaba barigaas aad ogto oo maanta loo oomay in Soomaali maxay ahayd kulligeed meel la isugu geeyo barigaas ay abuurantay madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliya waxa uu noqday Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde waxaana ra'iisul wasaare uu u magacaabay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxa ra'iisul wasaarihii labaad ee dawladdaasi u noqday Cabdirashiid Cali Sharmaake Soomaaliya markaasi caalamka ayay aqoonsi buuxda ka heshay waxaana soo dhaweyntii ugu ballaarnayd loogu sameeyay dalka Mareykanka halkaasoo aqalka cad uu ku marti qaaday ra'iisul wasaare Sharmaake madaxweynihii xilligaasi John F Kennedy Prime Minister, separated as we are by geography and history, mudane ra'iisul wasaare waxaanu nahay dad taariikhda baal kaga jira dhab ahaantii sidoo kale waxaan si weyn ugu faraxsanahay waanu soo dhawaynaynaa nidaamka maamulka dawladdaadu ay ku dhisan tahay sida sharci dejinta fulinta iyo garsoorka oo ah qaabka awood qaybsiga dalkana si weyn ayuu u dabaqay nidaamkaasi aad baan ugu faraxsanahay inaad ina soo booqatid mahadsanid soo dhawow ra'iisul wasaare Mr. President, I'm great pleasure to convey to you and to the people of the United States. madaxweyne aad baan ugu faraxsanahay in dawladda iyo waliba shacabka Mareykanka aan u soo gudbiyo salaan diiran oo aan idinkaga sido madaxweynaha dalkayga iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in kulankeena aan wada yeelanayno ay ka soo baxaan natiijooyin aad u wanaagsan oo horumar u noqonaya inaanu dhisno xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeya labada dal mahadsanid creation of good relations between our two countries. Thank you. maalintii dunidu madow milix soo baxdee waa maalintii dunidu madow milix soo baxdee mugdigii ilays mudanow dhaxlee mugdi
weligii lays mudanow dhaxle maalintii miililkii baye la marag furtee waa maalintii miililkii baye la marag furtee muudaa socdee la muquuniye muudaa socdee la muquuniye maalintii maadidii gudhnayd maandaq dhashee waa maalintii maadidii gudhnayd maandaq dhashee murah loo cushee la mugaabiye murah loo cushee la mugaabiye dowladdii madaxweyne aadan cadde ayaa sutida haysay tan iyo 1976kii xilligaasoo doorashooyin la qabtay kadib uu madaxtinimada kula wareegay cabdirashiid cali sharmaake madaxweyne sharmaake waxa uu isagana ra'iisul wasaare u magacaabay maxamed xaaji ibraahim cigaal iyadoo dowladdaasna ay jirtay muddo 2 sano kadib markii la dilay madaxweyne cabdirashiid cali sharmaake 1969 ayaa dalka waxaa gebi ahaantiisba la wareegay xoogagii militariga Soomaaliyeed oo jeneraal iyo korneelaba horkacayeen waxaana dowladii dalka lagu qabsaday Afgembi inkastoo xukuumadii militariga ahayd wax qabad badan lagu xusuusta haddana dagaalo badan ay gashay darteed ayaa waxaa ka hoos dhashay jabhado hubeysan oo xaalado qabiil ku abuurmay kuwaasoo ku midoobay sida ay xukunka uga tuuri lahaayeen xukuumadii Maxamed Siyaad Barre bishii Janaayo 27keedii sanadii 1991kii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa lagu qasbay inuu ka baxo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho jabhaduna ay halkaasi ku soo hoobteen hogaamiyaashii jabhadaha uu ka mid ahaa jeneraal Maxamed Faarax Aydiid ayaa dagaal ku sii daba joogay Maxamed Siyaad Barre xilli uu meel fagaara ah ka sheegay in magaalada Muqdisho uu ka dhaqaaqayo ilaa iyo tan iyo inta uu Maxamed Siyaad Barre dalka ka saarayo annagu dadka naga xaqu dirirka kuwa xabadda nagu soo ridaya in laga xoreeyo afweynay u baahan yihiin waayo maskaxdu ka cunay in laga xoreeyo ayay u baahan yihiin oo ummadii dib loogu soo dabaalo oo walaaltinimadii midnimadii soomaalinimadii la isku keeno Soomaaliya xaq baan u diriraynay inuu xuquuqiisa dadku helaan in dalkanaga nabad ka dhacdo in cadaalad ka dhacdo in markaasna horumar ka dhaco in dadweynaha awoodda gacanta dib loogu geliyo oo dadweynuhu u taliyaan
ridistii xukuumaddii militariga ahayd kadib muqdisho waxa ay martigelisay dagaalo lagu hoobtay kadib markii ay isku dhaceen cali mahdi maxamed oo xilligaasi jabuuti madaxweyne loogu soo doortay iyo jenaraal maxamed faarax caydiid oo xukunkiisii kasoo horjeestay dagaalkaasoo bilowday bishii November sanadkii 1991 bishii March 1992 dhinacyadiis ka soo horjeeday ayaa wada saxiixday heshiis xabad joojin ah oo ay soo abaabushay qaramada midoobay laakiin waxay hogaamiyaashii dagaalku ku heshii waayeen sida loo maareynayo xabad joojinta bil kadibna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ogolaaday in Soomaaliya loo diro 50 qof oo kor ka ilaaliya xabad joojintii la kala saxiixday bishii September sanadkii 1992 jenaraal Caydiid ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay inuu ka soo horjeedo in la keeno ciidamada nabad ilaalinta hase yeeshee December 1992 ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay go'aamiyay in Soomaaliya loo soo diro ciidamo hubeysan oo nabad ilaalin ah oo uu hogaaminayo Mareykanka si dadka cunto loo gaarsiiyo kadib markii ay adkaatay nolosha shacabka isla markaana ay miciishadii cirka isku sii shareertay dagaalada awgeed iyadoo xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ay jireen gaar ahaan qaybo kamid ah gobolada Koonfureed isla bishii December sanadkii 1992 ayaa ciidamada badda ee Mareykanka soo caga dhigtay xeebta Muqdisho ayaga oo watay magacii ah howlgalkii rajo soo celinta Janaayo 15 1993 wada hadal ay soo qabanqaabisay qaramada midoobay oo lagu qabtay magaalada Addis Ababa ayaa maleeshiyooyinkii isaga soo horjeeday Soomaaliya ay kala saxiixdeen heshiis ay ku joojinayaan dagaalka heshiiskaasi oo kamid ahaa heshiisyo dhowr ah oo ay kala saxiixdeen bishii October sanadkii 1993 isku dhici dhex maray ciidamada Mareykanka iyo taageerayaashii hubeysnaa ee General Caydiid ayaa sababtay geerida 18 ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo hal askari oo Maleesiyaan ah waxaana la dhaawacay 74 Mareykanka ah kadib markii Muqdisho lagu soo riday 2 helikobtar oo Mareykanku leeyahay meedadkii askarta la dilayna lagu jiiday wadooyinka magaalada taasoo soo dadajisay in bishii March 28 1994 howlgalkii Mareykanka ka waday Soomaaliya si rasmi ah loo soo afjaray bishii February 28 sanadkii 1995 ciidamada badda ee Mareykanka iyo ciidamada Talyaaniga ayaa ka qayb qaatay daadgureynta ciidamadii qaramada midoobay lagaga daadgureeyay Soomaaliya horaantii bishii May sanadii 2000 shir Soomaalida lagu heshiisiinayay ayaa ka bilowday tuulada Carta ee dalka Djibouti shirkaasi oo ay ka qayb galeen in ka badan 2000 oo Soomaalida hogaamiyaasheeda ah waxaana bishii August 13 sanadii 2000 dhidibada loo taagay dawladii ku meel gaarka dawladaas oo la siiyay muddo 3 sano inay heshiis ka dhaxdhaliso dalka Soomaaliya waxa dawladaasi madaxweyne u noqday Cabdiqaasim Salaad Xasan ra'iisul wasaarena Cali Khaliif Gallayr
رقية مارلا كنت لي رقية مارلا كنت لي ترحمة ويسا مرتي طبيبي وفاهتاي وكان اسكت باردي ورس فيها دولة بيربتا أمتو ويتالنتهاي أمتو ويتالنتهاي ترحمة ويسا مرتي طبيبي وفاهتاي وكان اسكت باردي ورس فيها دولة بيربتا bishii Sebtembar 15 sanadkii 2003 waxaa lagu heshiiyay axdiga kumeel gaarka ah ee Soomaaliya iyo in dawladda la dhisay ay codbixin dalka Soomaaliya ku gaarsiin doonto muddo 5 sanadood ah taas oo ku xigtay markii uu dhamaaday waqtigii 3 sano ee dawladdii hore ee kumeel gaarka ahayd dawladdan cusub waxaa loo bixiyay dawladda federaalka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya bishii August 2004 wafdiyadii ka qayb galay shirkii Soomaalida uga socda Kenya ayaa doortay 275 xildhibaan kuwaasi oo lagu soo xulay hab qabiil oo loo bixiyay 4.5 October 10keedii 2004 baarlamaanka kumeel gaarka ah ayaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed ay u doorteen madaxweynaha dawladda federaalka kumeel gaarka ee Soomaaliya November 3keedii 2004na madaxweynaha waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Cali Maxamed Geedi Febraayo 28keedii sanadii 2006 Muqdisho waxaa looga dhawaaqay golihii kacdoonka midowgii maxaakiimta Islaamiga taasoo bilcagsigeeda ahayd isbahaysiga la magac baxay la dagaalanka argixisada bishii Maaj 22keedii 2006na waxaa Muqdisho ka dhacay dagaal aad u culus kaasoo socday ilaa iyo Maaj 23keedii dagaalkaas oo u dhaxeeyay midowgii maxaakiimta Islaamiga iyo isbahaysiga la baxay la dagaalanka argixisada dad fara badan ayaa dagaalkaasi ku dhintay in badanna guryahoodii ayay ka qaxeen bishii Juun 15keedii sanadkii 2006 madaxweynihii dawladda federaalka kumeel gaarka ah Cabdullaahi Yuusuf iyo gudoomiyihii midowga maxaakiimta Islaamiga Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxweynaha dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ka aqbalay inay wada hadlaan bishii October 29keedii sanadkii 2007 Cali Maxamed Geedi ayaa iska casilay ra'iisul wasaarenimada dawladda federaalka kumeel gaarka ahayd kadib markii khilaaf soo kala dhaxgalay Geedi iyo Cabdullaahi Yuusuf markii dambe Geedi waxa uu sheegay in sababta khilaafka ay sal u ahayd batroolka Soomaaliya Geedi waxa uu ra'iisul wasaare u ahaa dawladda federaalka kumeel gaarka intii u dhaxaysay November 3keedii 2004 ilaa October 29keedii 2007 bishii November 22keedii sanadii 2007 Colonel Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka kumeel gaarka waxaana lagu dhaariyay Baydhabo 2 casho kadib December 2007 Nuur Cadde ayaa soo magacaabay golihiisa xukuumadda oo ka koobnaa 73 xubnood oo isugu jiray 31 wasiir 11 wasiir dawle iyo 31 wasiir ku-xigeen maalintii xigtay waxaa soo baxay in wasiiro uu magacaabay ay iscasileen kuwaasoo sheegay in markii la soo magacaabayay aan lala tashan iyo inaan magacaabista wasiirada la waafajinin nidaamka 4.5 oo ay ku salaysnayd dawladda federaalka kumeel gaarka ee awood qaybsiga qabiilooyinka January 3keedii sanadkii 2009 kulan ay xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka ah ku yeesheen Djibouti ayaa waxa madaxweynaha dawladda federaalka kumeel gaarka ahayd loo doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed dawladdii uu hogaaminayay Sheekh Shariif oo dagaalo ba'an la gashay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo gacan ka helay ajaanib fara badan iyadoo ugu dambeyn gaartay guulo la taaban karo kadib markii ay ka saartay caasimadda waxa kale dawladdii uu Sheekh Shariif hogaaminayay lagu xusuustaa diyaarinta qariirada loogu magac daray roadmap
taasoo ahayd dhabihii loo marayay in Soomaaliya ay hesho dowlad dhammaystiran oo si buuxda caalamka looga aqoonsan yahay. bishii September sanadii 2012 waxaa la doortay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudanayaashaasoo tiradoodu ahayd 250 mudane kuwaas oo ay sii doorteen madaxweynaha iminka talada haya ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda federaalka ayaa looga fadhiyaa qorshaha doorashooyinka xorta ah dalka lagu gaarsiinayo iyadoo dhinaca kalena sii ambaqaaday dagaaladii dalka looga safeynayay haraadigii maleeshiyaadka al-shabaab waxayna dowladda federaalka ku guuleysatay magaalooyin muhiim ah inay ka farmaroojiso al-shabaab. Soomaaliya tan iyo 1960kii waxaa soo maray 8 madaxweyne uu haatan ugu dambeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda dowladdiisu ay diyaarinayso sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyinka xorta ah sanadka 2016.